dugsiga dhagoolayaasha ee magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal ayaa waxaa la soo gaarsiiyay deeq iskugu jirta weelal gogol iyo agabka nadaafadda. Deeqdani ayaa waxaa soo gaarsiiyay dugsiga dhagoolayaasha ee magaalada Boorama gabadh Soomaaliyeed oo magaceedu yahay Hodan Suleebaan Cali Dugsiye, isla markaasina ardayad ka ah dugsi sare oo ku yaala magaalada Ottawa ee dalka Canada. deeqdani ayaa waxaa loo soo wakiishay gudoomiyihii hore wasaaradda waxbarashada ee gobolka Awdal Axmed Ciga Riiraash, isla markaasina waxa uu gudoonsiiyay maamulaha dugsiga dhagoolayaasha ee magaalada Boorama. Waxa ugu horeyntii madashaasi ka hadlay Axmed Ciga Riiraash oo ka sheekeeyay marxaladii kala duwanaa ee ay soo martay deeqdani iyo waxyaabaha gabadhani ku dhaliyay inay caawiso walaalaheeda danyarta ah. samafalkan yareen ardayda wadna halku inooga yimiday alxamdulillaah waxa soo dirtay gabadh la yiraahdo Hodan Suleebaan Cali Dugsiye oo kula nool waalidkeed dalka Canada magaalada Ottawa caasimadda Canada. Hodan beri ayay halkan noogu timiday iyadoo ma garanaysaa fasax waalidkeed la socday. Hodan kolkay noqotay arrimo cajiib ay samaysay oo ilaa yacni aad ka yaabayso. caruurtii waxay aragtay oo xagga joogtay kuwa xaggan oo kala duwan bay aragtay dabeedna waxay samaysay bahalo halka la gashado oo caaga ayay samaysay caaga halka intii ay badisay bay waxa ku dul qortay iftiinka rajo soo baxaya iftiinka rajo oo soo baxaya ayay bahalaha ku dul samaysay bahalii bay suuqa geysay si aad looga iibsaday runtii oo ardaydii gaaladii halka ku dhaqleed baa la dhacday arrintii dabadna si weyn buu iibsaday arrintii hadda wixii ka soo baxay halkan yartii waxay go'aan ku gaadhay inay u soo dirto iskuulkan iyadoo kaalmada kalena ee dambe soo socotana ay u qaybin doonto meelaha aad ugu baahan ee ka sii daran halkan haddii la arko. ardayda waxaan u wadnaa saabuun ay nooc baan u wadnaa saabuuntii jidhka tii dharka oo laba nooca tuwaaladii kolkay suuriga galaan ay iska masaxayeen jidhka sida dadka caadiga yihiin duraaxadihii marakaneecadii waxaan wadnaa barkimooyinkii xalay waan arko busto umay baahnayn iyo furaash midna oo aad baan u jeegareeyay. waxaa kaloon wadnaa caruurtan dusuudda wax lagu karsado oo 6 kiilo 4 kiilo 3 kiilo karinaysa koobkii shaaha duraaxadii waan sheegnay Soomaa. waxa kaloon keenay saliida madax oo soo iibinay iyadana madax ay marsadaan kildi shaaha caaga biyaha lagu cabo ya laba tashti oo dharka loogu maydho tuwaalo lacagta aanu ka helay runtii aanu halka ka helay waxay ahayd waxaa kaloo isna madashaasi ka hadlay maamulaha dugsigaasi Faarax Axmed Cigaal oo u mahadnaqay gabadhani soo gaarsiisay deeqdani. ugu dambeyntii waxaa madashaasi ka hadlay gudoomiyaha Telesom ee gobolka Awdal Cabdiqaadir Nuur Khadar Maxamed Xasan Laba Qayle TV-ga caalamiga ee Soomaali Saad magaalada Boorama.